بسم الله الرحمن الرحيم. balse marka xilliga barwaaqada ay sii yaraanayso koox daanyaro da'yar kuwaasoo rajo wanaagsan leh waa kuwa gudaha u soo galay. tani waxay qalalaaso ka dhex abuuri kartaa kooxda daanyarka dhexdeeda. inay aad ugu soo dhawaadaan waa mid uu bobow ku raaxaysto. waa mid si adag ugu soo dadaalay in kuwa yar oo dibad jooga ay khatar geliyaan dhanka webiga boqortooyadiisa ay ka joogto. raxantu waa mid is-abaabushay waa kugu soo diyaargaroobay dagaalkan si degdegan u falceliyey. marka hore dhallaanku waa in laga leexiyaa waddada. muunanka doonaya inay afgembiyaan raxanta waa kuwa dilaya dhallaanka aanay dhalin. ilaaliyahu mid hoggaaminaya weerarka. inta kalena oo kuwa ku biiray ha ogaadaana kuwa bannaanka ka yimid inaan halkan lagu soo dhawaynaynin. intaa kadib ilaaliyaha weyn waa mid shaqada soo gabagabaynaya. halkan isaga ayaa ka taliya wax su'aala kama taagna balse waa mid qiimo loo huray. mid ka mida dhallaanka maaha mid ka badbaaday xilligii la rabay. xilliga rabshadaha waa midaan macquul ahayn in cid kasta la ilaaliyo. mid ka mida kuwa dibadda ka yimidna waa mid ka faa'iidaystay. tani waxay digniin cad u tahay in xitaa xilliga ugu wanaagsan mashaatu ay tahay meel weli khatar ah. waa mid u baroor diiqi doonta midkan dhintay wadwadi doontana muddo ayaama ah. ku barbaaridda halkan waa mid afka ka fudud balse adag in la sameeyo. inaad waalid ahaatana
ومد آد أغسي أدك روابك وكويس تاغي قبي هامبه اسبوعية كليلة عمل قلال ومد بدشي وحكسته kuwa dooga cuna waa kuwa daaqaya dhulka daaqa iyagoo ay u tahay sanadkii ugu dambeeyay dhirta xaqiiqdii dhallaanka armacadka kuwa diyaar ma rabo u ahaa inay bilaabaan waxbarashadooda dhogorta ku taalla qoortooda waa astaanta lagu garto qaangaarnimadooda waxaa intaa dheer in intooda badan ay la mid yihiin hooyada dameer farow waa mid si fudud loo jahawareerin karo oo isticmaaltaasi faa'iidadaada marka ugu horeysa letsi waa mid dhaqdhaqaaqa bilaabaysa dhallaanku ku u baahan bartilmaameed dhaqaaqaya indhaha ka daawo waxna ku baro waa markaaga waxa loo baahan yahay waa waqtiyeyn iyo xawaare waxba ka walwalin ma jirto cid wax ku qabata isku dayga ugu horeeya waad gaari doontaa daayirta harmacadka oo kugu soo geliyay dameer farowga gacmaha libaaxa nasiib ayuu leeyahay dameer farowga libaaxu waa kugu si wanaagsan wax u cunay xalay cagaarkii ugu dambeeyay waa mid yaraanaya biyahana waa kugu mirqaya mar kale ambaalida da'da yar waa mid wax yar ka garanaysa dunida dhabta ah waa mid hooyadeeda ku hoos jirtay dhammaan nolosheeda hadda safarka ugaarsiga Motswiri waa mid traagaya dabcan waa qaab ay ku dhiirigelinayso madax bannaanideeda ugu yaraan muuqaalkan haddii uu qalmo hal like iyo hal subscribe fadlan ha ka masuugin hana ka bakhaylin